bismillahi raxmaan raxiim. haddii la qadaro waxaan wadaagi doonaa qayb labaad oo ka mid ah hubkii lagu dagaalami jiray waayadii hore. waxaan soo qaadan doonaa gaashaanka. gaashaanku waa qalab la isaga dhigo hubka oo ah difaaca qofka ka ilaaliya halista warmaha iyo fallaaraha la soo gano. qaaliban 3 shay baa lagala bixi jiray: geriga, biciidka iyo wiisha. gerigu ma badnayn, laakiin waxaa aad u badnaa wiisha iyo biciidka. inta badanna hal-abuurradu kolka ay maansoonayaan waxay ku muujiyaan tixahooda. Allahu naxariistay gabyaaga la odhan jiray Qowdhan Ducaale Suldaan, gabaygii naftii hafarka ahaa waa ka ku daraya 2 waran habeed iyo sar iyo haylo kala boodnay mana dhiigu hoobaan cas yahay haydhafyada siina. markaas sartu waa sar biciid. sidoo kalena waxaa la yidhaahdaa waxaana lagala baxaa wiisha, waa kii lahaa wiilkii shaqlanaa iyo waa ferownadigi iyo warmahaygan ka dheer iyo waaxidkaygan hadlaaya tixdii walhad waa kii sayidku ku daray. qiim ahaan wuxuu taagnaa neef geela, oo waa kii gabyaagu lahaa maruu ka warramayey faras uu iibsada qiimaha uu ku taagan yahay, waxaa ku daray in 10 halaadu la qiimo yahay faraskani. dabeeto waa kii lahaa labaha tandhalay iyo labaha tandhalaya iyo mid kaloo ka dhex tuura iyo gaashaan dhiig wiileeda. markaa 10kii halaad ee uu sheegayay gaashaanka ayaa u dhigma neef geela. waad mahadsantihiin daawashadiinaas.